على إيو ما يقعد تشوفن إيو مسلها شفكي سيو شق مدر تشيسيو شادي ينعسيو شق نور بالله سيو شبقي على إيو ما يقعد تشوفن إيو ما شاء الله شفكي سيو كسر دوينا عبد السمد سعيد عبد السمد أحمد إسماعيل روبله وأنا كسر دوينا مدار كي هرجيسا إسقوا حلبان كترسن حلبان هذا قوله الدجان كي صوص هذا أهنا الرجال لجوا ذو إنه نقضه ما يركع عاصمة ده صوص هذا sida ka muuqata iyadoon ololihii la gaarin ama waqtigii campaign-kan la gaarin baad arkaysaan dadka iyo shicibka iyo taageerayaashiisa nus maahe in yaroo ka mid ah oo aad arkaysaan haddana cududiisa ayaa maanta lagu soo dhaweeyey garoonka weyn ee Hargeysa waxaan ku soo dhaweynaynaa Saciid Cabdisamed Axmed Ismaaciil Rooble madaarka Hargeysa iyo wadankiisii iyo ciidiisii iyo isagoo aynu waqtiyada soo aadan aynu filayno doorashooyinka golaha deegaanka inuu ku soo baxo noqdana maayirka caasimadda soo socda ku soo dhawow Rahmaan Rahiim Allahu Akbar waxaan maanta idin sheegaynaa waxaan soo dhaweynaynaa nin reer Hargeysa dhalinyaradii reer Hargeysa ugu firfircooneed ah waa Saciid Cabdisamed waa ninkii dhalinyarada Soomaaliland markii dibadaha ugu tagaan ku soo dhaweyn jireen halku joogo maantana haddii aan maayir Hargeysa uga dhigno dawaa garanaysaan wuxuu qabanayo isagoo dalka dibadiisa jooga ayuu cidii Soomaaliland u warka ku soo dhaweyn jiray gurigiisa hantidiisa ku bixin jiray ururka barkhadla maanta wuxuu nii wadaa kii ugu wanaagsanaa haddii hore aad ugu dhaliili jirteen madaxweynaha wax maanta ba Saciid Cuuran la doorta waa kan maayirkii mustaqbalku bismillaahir rahmaanir rahiim waxa halkan maanta aanu ku soo dhaweynaynaa xildhibaan ama musharax Saciid Cabdisamed oo loo saadaalinayo isla markaana u taagan maayarka caasimadda waxaan leeyahay ku soo dhawow dalkaaga hooyo maanta halkan dadka ku soo dhaweeyay xisbi kaliya maaha saddexdii xisbiba waan arkayaa wajiyadoodii waxaan arkayaa xidigihii geeskaan arkayaa oo iyaguna halkan ku soo dhaweeyay waxaan arkayaa dad kala wajiyo duwan bulshada reer Hargeysa oo dhan baa halkan ku soo dhaweeyay xitaa maaha degmada Maxamuud Haybo kaliya waxaan arkayaa degmada Lixiraata ka Jun Koodbuur baan arkayaa Gacan Libaax baan arkayaa waxaan arkayaa Axmed Dagax
taas waxay tilmaamaysaa inuu nin reer Hargeysa yahay waxaanay u fududaynaysaa inuu noqdo maayarka caasimadda mar hadduu shantii degmaba ka soo jeedo hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay ku soo dhawow dalkaaga hooyo dadkaaga ku soo dhawow muddo imika 2 bil iyo badh 2 bilood meelahaas aad ka maqnayd waxaan leeyahay tani waxay tilmaamaysaa baahida bulshadu u qabto in caasimaddu hesho nin aqoon-yahana oo jagada ka soo bixi kara waxaan leeyahay Ilaahay ha ku fududeeyo xilka insha Allah waad soo bixi doontaa wassalaamu calaykum soo dhaweyno aqoon-yahanka u sharaxan golaha deegaanka Hargeysa gaar ahaan maayarka caasimadda saa aragtaan maanta waxaynu gaarnay xilligii ay shaqayn lahayd aqoontu waxaynu gaarnay xilligii uu shaqayn lahaa waxgaradku waxaynu gaarnay xilligii la dooran lahaa qofka u danaynaya ee ka naxaya caasimadda waa xilligaynu dooran lahayn waxa weeye waa Siciid Cabdisamed waa nin reer Hargeysa waa nin taageero buuxda ka haysta 5 degmo ee caasimadda ay ka kooban tahay waa nin ballaaran waa nin taageerayaal waa nin bulshada aad u taageersan tahay waxa sida cadceedda waxa u cad hadduu maayar noqdo in magaalada wax badan iska bedeli doonaan waxa saacadda u caddahay waana soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay maayar ku soo dhawow dalkaagii hooyo oo ku soo noqotay maanta waxaan isugu nimi soo dhaweynta xildhibaan Siciid Cabdisamed oo halkan ku muujinayna taageero ballaaran oo hayno insha Allah ta'ala uu soo bixi doono Bismillahir Rahmaanir Rahiim marka hore dhamo salaamaya ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliland meel kastoo joogto waxaan ku sugannahay madaarka Cigaal International waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaankeyga insha Allah billahi kariim oo maayarka mustaqbalka كحدي جهان هستي شنو والله قديار إن شاء الله بسم الله الكريم أبدا نقول سلام الله وانكسر دوينيا قدوميا دقيقة جيسكا محمد حبكال العرو waxaan maanta madashan ku soo dhaweynaa xildhibaan Siciid Culi baan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay wadanka ku soo dhawow aad baan ku taageerinaa insha Allah billahi الكريم waxaan noqon doontaa maayarka mustaqbalka wax weyn ka bedeli doona dalka taageerto Siciid waa nin muwaadin aniga bagaca Galnuun Maxamuud Siciid uu qalmaa wadankan uu ku dhashay waan uu qalmaa in aqoonteedana leh waynu codeynaa walaalkay Siciid dadka aad soo dhaweynaa waan sharfayaa Rahmaan Rahiim dhammaan dadka sharafta leh ee isugu jira uqaasha aqoon-yahanka dumarka dhalinyarada dhammaantiin fanaaniinta xidigaha geeska dhammaantiin ururka barxadle dhammaantiin waxaan idin mahadnaqayaa soo dhaweynta wanaagsan ee ay soo dhaweyseen dhammaantiin taageerayaasha halkan soo qayb galay waan idin mahadnaqayaa waanaynu heli doonaa isbeddelka. Assalaamu calaykum.